السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. daawadayaal waxaynu muuqaalkan ku eegi doonaa astaamaha lagu kala garan karo qofka daacadda ah iyo qofka khiyaanoolaha ah. waa mowduuc aan jeclaystay in bulshadayda aan la wadaago isla markaana aan filayo in wax badan laga faa'iidayo. haddii aad si wanaagsan u dhuuxdo qodobada aan kuu soo wado waxaa kuu sahlalaalaya inaad si dhow ku garan karto in qofkan uu yahay qof daacada ama inuu yahay qof khiyaanoolo ah. qofka bini'aadamka ah waxyaabaha aadka u adag ee aan marlaba laga ogaan karin waa waxa qalbigiisa ku jira. sidaas daraaddeed qofka daacadda ah ama qofka khiyaanoolaha ah marnaba dadka dhexdooda lagama soo dhex saari karo, balse dadka ayaga oo taariikhdoodii hore ama dhaqamadoodii dib loo milicsanayo ayaa waxaa la qiyaasi karaa oo keliya qofkan haddii uu wanaagsan yahay iyo in kale. si kale haddii aan u dhiglo astaamaha qofka daacadda ah waa qofka inuu yahay mid runsheeg badan, in qofku uu ballanta ku wanaagsan yahay, ama qofka inuu yahay mid aad u naxariis badan. sidoo kale in qofku dabeecadda uu dadka kale kula dhaqmo in ay aad u wanaagsan tahay. sidoo kale waa in qofku uu yahay mid dadka kale aan gadaal ka xaman. qofkii arrimahan iyo kuwa la midka ahba ku sifooba waxaa la dhihi karaa waa qof daacad ah. halka qofka khiyaanoolaha ah lagu garto arrimaha aan soo xusla cagsigeeda, sida in qofku uu yahay mid aad u been badan, in qofku uu yahay mid ballanka bax badan oo aan marlaba dhoorin ballanta, iyo in qofku uu yahay mid tuug ah. haddii arrimahan uu ku sifoobo qofka waxaa muuqata inuu yahay qof khiyaanoolo ah. waxaan filayaa in muuqaalkan aad ka heshay oo wax badan aad ka faa'iiday. fadlan sii sheergaray si ayaguna ay uga faa'iidaystaan saaxiibadaada kale ee wanaagsan sidaadoo kale. mahadsanid.